استعوى مغلا شركة نتفليكس لكن قفل بموقع حقيقي كصابصا شركة بس انت إذا قرصون أي بدن مقارلة شح وما باهين تفكر ذا قلوا عني فافين تألك ودنمدا وأسوأ قارك مدى وجدوين كاي كودسن تاع شركة الشارك هاي هو انتهاء وياهاي سمينتا في المدى مقالة مدى دالة هدف كذا معروف كاهنا سيدي عادة هاي دويني هانتي كسبين أفلام تاس لكن وما حي هدف ذا كلا أساسي قواه كواصل إنها دونك كقرصون balse waa tuma shirkadda Netflix wuxuu yahay xiriirka ay la leedahay ururada qarsoodiga ah balse ma tahay shirkad soo saartay aflaamta oo kaliya bise qisado qayb labada oo inaga dadan ayay leedahay laakiin su'aasha ugu muhiimsan waxa weeye xaqiiqada shirkaddan iyo hadafideeda qarsoon waxaanu dokumentarigan ku soo qaadan doonaa arrimaha muranka ugu badan ka dhaliya dadka dhexdooda si aynu u iftiimino xaqiiqooyinka shirkadda Netflix taasoo ay si rasmi ah u aasaaseen laba qof oo ka tirsan darajooyinka 9aad iyo 11aad ee ururka Maasoniidda kana soo jeeday asal ahaan waddanka Norway. sanadkii 1997 waxaa soo ifbaxay laba nin oo lagu kala magacaabo Mark Randolph iyo Reed Histon wuxuuna ahaa Histon saynisyahan dhanka kombiyuutarada ah wuxuuna lahaa shirkadda BioAtria taasoo Randolphna uu ka ahaa madaxa suuqgeynta shirkadda ka hor intii aanay iibsan shirkad ka shaqeysa dhanka programmerka iyadoo hamigooduna ahaa inay aasaasan shirkad dhanka aflaamta ka shaqeysa taasina waxay dhacday 29 August sanadkii 1997 kadib markii aasaasan shirkad ay u bixiyeen Netflix. shirkaduna waxay asalkii ka shaqeyn jirtay iibinta casharadaha DVD-ga kuwaasoo lagu duubi jiray aflaam laakiin waxay sidoo kale qaban jirtay adeeg gooniyaha kaas oo in macaamiisheeda ku xidhan boggooda internetka ay ugu diri jireen DVD-yada qaab posta ahaan ah iyadoo qofku u iibsanayo si bilaa halkii uu qofku markasta laga qaadi lahaa kharash gooniya. fikraddan soo booqashada mareegta shirkadda taasoo qofka macaamilka ahi uu hal kali ku helayo filimkii uu u baahan yahay waxay ahayd fikrad cusub bilowgii qarnigan. hanaankan dartiis shirkaddu waxay noqotay mid ka mid ah mareegaha ugu guulaha badan internetka. New York Times ayaa daabacday in Netflix ay u dirto qiyaastii 190,000 oo DVD macaamiisheeda maalin kasta iyo 270,000 bil walba. tirada macaamiisha shirkadda Netflix ayaa gaadhay 1 milyan oo macaamiil 3 bilood ee u horreeyay sanadkii 2002 muddo yar kadibna sanadkii 2005 waxay gaadhay 5 milyan oo macaamiil balse intaas waxay ahayd bilowgii uun. markaynu intaa ka nimaadno sanadkii 2007 shirkaddu waxay ku dhawaaqday inay macaamiisheeda u soo kordhisay adeegga baahinta barnaamijyada TV-ga ee ah filmaantii u dambeeyay iyagoo si toos ah uga daawan kara kombiyuutaradooda iyagoo si toos ah uga daawanaya mareegtooda internetka. hal sano kadib Netflix waxay ku dhawaaqday heshiis ay la gashay shirkadda LG si ay u soo saarto qalabka Ultra HD Blu-ray disc player kaasoo muuqaalka ka dhigaya mid tayo sare leh si ay gacanta ugu dhigaan suuqa tayo sareynta muuqaalada. wuxuuna arrinkaasi keenay in dadkii jeclaadaan cajaladaha DVD-yada iyo qalabka Blu-ray ee muuqaalka tayada sare siinaya kaasoo dadkii u soo jeeday dhanka imbiraadoriyadda mugdiga u saaxiibka ahayd ee Netflix. adeegsiga ay adeegsanayso shirkadda barnaamijyada tooska ah ee TV-yada iyo cajaladaha muuqoodu aadka u tayada sareeya awgeed shirkaddu waxay gaadhay 14 milyan oo macaamiil bishii Maarso ee sanadkii 2010. tiradanina waxay 10 jibbaar korodhay sanadkii 2019 iyadoo gaadhay in ka badan 149 milyan oo macaamiil sanadkaas. halka tirada macaamiishadii ay saacadan aan barnaamijkan diyaarinayno ay marayso 221 milyan oo adduunka oo dhan ah. shirkaddu waxay u jeestay inay u soo saarto aflaamteeda iyo taxanaheeda hab ay ugu talagashay kaasoo bedelaya afkaarta dadka. dad badan baa u maleynaya in shirkadaha waaweyn kaliya ay raadinayaan inay lacag un helaan balse xaqiiqadu waa in marka shirkad ama qof ku guuleysto inay meel iska soo muujiyaan ayna caalamka saameyn weyn ku yeeshaan ay soo jiitaan ururada qarsoon ee daaha dabadiisa caalamka hadda ka maamula waxayna u ballan qaadaan taageero maaliyadeed mid saameyneed iyo mid madaxnimoba si ay iyagana ugu fuliyaan ajendayaashooda siyaasadeed iyo qorshayaashooda iyo xeeladahooda qaloocan si ay ugu adeegaan aasaasida boqortooyada shaydaanka in dadka laga dhig qaar u diyaara soo bixidda kay sugayaan soo bixidiisa oo dajaal ah kadib marka maskaxdooda laga tirtiro diinta iyo dhammaan dhaqanka wanaagsan. waraysi toos oo ay ka qaaday wargeyska New York Times aasaasaha iyo mulkiilaha shirka ugu weyn ee shirkadda Netflix Reed Histon
wuxuu si cad u sheegay in ujeedada shirkaddu ay tahay in la faafiyo oo dadka la baro hab nololeedka reer galbeedka, waana qaabka foosha xun ee dhammaan hadday tahay labiska, khaniisnimada iyo qaawanaanta. wuxuuna kaloo ku xaqiijiyay wareysigaasi shirkaddu aysan tirtiri doonin qaybaha ka mid ah muuqaalada ee foosha xun, kaasoo ay ku soo daraan aflaamtooda. hadalkan wuxuu si cad u fahmayaa qofka miyirkiisu wanaagsan yahay inay tahay fariin cad hadafkeeduna yahay in caalamka lagu faafiyo dhaqannada guraacan, alla koodnimada iyo khaniisnimada iyadoo loo gudbinayo qaybta caqliga ee loo yaqaan caqlul laawaci ama caqlu baatin, kaasoo saameeya kana qayb qaata hab nololeedka qofka, wuxuuna saameeyaa qaybta caqliga ee loo yaqaan caqlu waaci, iyadoo marka lasoo bandhigayo laguna celcelinayo dhammaan noocyada muuqaalada dhaqanka saliimka ah baalmarsan iyadoo dadka loo tusinayo inay yihiin dhaqan wanaagsan oo kalgacayl ku jiro. dadkan matalayana uu shay caadiya agtooda ka yahay iyadoo loo soo gudbinayo si daraamaatikali ah ama jilid ah. sanado badan kadibna dabeecadaha dadka ayaa si tartiib ah lagu bedelayaa siduu u aqbali lahaa arrintan. daraasad lagu sameeyay dadka Mareykanka muddo 20 sano ah waxay muujisay in aqbalaadda khaniisnimada ee ficilada qowmuluudku ay tahay 27% sanadkii 1996, ayna sare u kacday sanadkii 2015 iyadoo gaadhay 60%. tanina waxay caddayn cad u tahay saameynta iyo awoodda ay leedahay warbaahinta iyo fiilmadu dhanka bedelidda habdhaqanka saxda ah ee dadka. sanadkii 2010 waxay bilowday soo deynta muuqaalo ay ka buuxaan fawaaxish kana maran akhlaaqda saliimka ah hadday yihiin aflaam iyo musalsalaba nooc walba yihiin. qofku uma baahna inuu haysto shahaado cilmi nafsiga ama inuu khabiir ku yahay fanka dacaayadda ama propagandada si uu fahmo oo uu ogaado in waxa halkan ka dhacaya ay tahay beerista dhaqamo cusub, kuwaasoo si nidaamsan ku soconaya, taasoo dadka lagu harqinayo muuqaalo goos ah oo anshax darro ka buuxdo, iyadoo marka dambe qofka agtiisa ka noqonaya shay dabiici ah oo uu sidaa ku aqbalo, balse ay marka dambe naftiisii sii jeclaataba. haddii aanan yar dib u noqono waagii hore marka ay reerku daawanayaan filim, marka ay soo baxaan muuqaalo isjumiinah waalidku isla markiiba waa ay bedeli jireen channelka, balse maanta waxay noqotay muuqaal dabiici ka ah basharka badankiisa kadib saameynta uu ku yeeshay qaybta caqliga ee lagu magacaabo caqlul laawaci aynu hore usoo sheegnay. tanna waa hadafka ah in muuqaalada lagu soo daro muuqaalada qaawanaanta dhammaan fiilmada iyo musalsalada shirkadda Netflix si uu shay caadi ah u noqdo sanado kadib. arrinkuna halkaa kuma joogsan, balse waxay bilowday olole lagu beegsanayo diinta islaamka, kuwaasoo isugu jira durid, sumcad dilid iyo hadday tahay xaqiiqooyinkoo la bedelo, taasoo ay weliba hormuud ka tahay shirkaddani, taasoo ay ka dambeeyaan ururada qarsoodiga ah ee ibliis u adeega. waxayna soo saartay aflaam iyo musalsalo ay matalayaan dad muslimiin ah oo dhaqamada xunxun matalaya. waxaana u dameeyay filim ay ka mid ahayd jilayaashiisa ugu waaweyn gabadh muslimad falastiiniyad ah oo xijaaban, balse haddana samaynaysa xidhiidho baalmarsan dhaqanka islaamka si arrintani inay caadi tahay loo tusiyo dunida islaamka. waxaana kaloo jira filim kaloo ay Netflix leedahay ayna matalayaan qaar mulxidiin ama allakoodiina, kuwaasoo sheeganaya islaamnimo welibana difaacaya una doodaya ficilada khaniisnimada si ay dhaqan dooris loogu sameeyo dadka caamada ah. waxaana jira dad badan oo aqoontoodu gaaban tahay oo rumaysanaya. waxaana Ilaahay qur-aanka ku sheegay sidii uu halaagay magaaladii xumaanta samayn jirtay. waxayna u soo gudbinayaan muuqaalada qaab farshaxamaysan, taasoo daawadaha ka dhigaysa inuu la tacaadufo kuwa matalaya. adigu waad suuraysan kartaa halkaasi inay sax tahay iyo in kale, balse arrinka ugu halista badan waa weeraridda iyo afkaarta ka shakisiintu ku jirta ee diimaha ku wajahan, kuwaasoo maalinba maalid ka dambaysa sii kordhaysa, balse ku jeesteesida wax kasta oo muqadas ah ama la xidhiidha rabbinimada Rabbi ayaa ah shay ku xididaystay reer galbeedka muddo dheer, wuxuuna si xoog leh u soo baxay xilligii kacdoonkii Faransiiska. waxayna noqotay shay caadi ka ah bulshooyinka Yurub dhexdooda. laakiin Netflix marka xagga laga yimaado waxay kaloo soo bandhigtay muuqaalo kor u qaadaya oo weyneynaya shaytaanka iyo sifooyinkiisa, kuna jahaynaya daawadaha inuu la tacaadufo ama la dareen noqdo, iyagoo soo taxay qisooyinka diiniga ee ka hadlaya abuurka, iyagoo qaab kale u dhigaya, iyagoo weliba sidoo kale Ilaahayna ku jeesteesaya. waxayna bilaabeen bulshada galbeedka ee kiristanka ah olole ka dhan ah shirkadda Netflix ka hor wadamada bariga ee muslimka ah, iyadoo haddana shucuubta galbeedka ay xumaanta ku dhex faaftay ay xamili waayeen muuqaaladan xumaanta iyo cunsurinimadu ka buuxday ee xadhkaha goosta iyo qorshayaasheeda dhagaraysan ee ay ugu adeegayso ibliis iyo kuwa raacay.
iyadoo aynu joogno adduunyo ay hoos u dhacday muhiimadii dhinacyada ruuxiga ah ee shareecooyinka samaawiga ahi una ekaaday sidii caalam dhintay oo kale ayaa haddana shirkado leh ujeedooyin cad oo fikradeed waxay sii wadaan inay isku dayaan inay baabi'iyaan dhammaan wixii shareeco dhanka rabbi ka timi ee aadanuhu haysto kuna beddelaan dhaqamo guraacan balse waxa aan shaki ku jirin in Netflix ay tahay mid ka mid ah kuwa gudbinaya afkaarta inkasta oo aanay dabcan kaligeed ahayn wayna laba jibaaranti faa'iidada Netflix intii lagu guda jiray qaybtii hore ee sanadkii 2020 waliba gaar ahaan intii lagu jiray lockdown-kii waxayna gaadhay $700 milyan marka loo barbardhigo sanadkii ka horreeyay oo ahayd $344 milyan halka dakhligeedu uu kor u kacay 128 isagoo ka sare maray $5 bilyan Mareykanka ah intaas ayaa aynu ku soo afmeeraynaa dokumentigeena aynu kaga hadlaynay ujeedooyinka qarsoon ee shirkadda lagu yaqaan aflaam samaynta intaas ayaa uu ku yahay muuqaalkeena maanta intaanu muuqaalkeena xigay sugayma doonaan waxaan ku kala tagaynaa sidaa iyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh